Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay in la baaro dagaalkii dhawaan dhex maray Israa'iil iyo Xamaas. Guddiga ayaa ansixiyay qaraarka oo ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah dalalka Islaamka, balse Mareykanka ayaa sheegay in go'aankan uu qalqal gelinayo hanaanka xasiloonida loogu soo dabaalayo gobolka. Ugu yaraan 242 qof ayaa ku geeriyootay dagaalkii iyo weeraradii Gaza dhinaca Falastiiniyiinta, iyadoona Israa'iiliyiintuna ay 11 ruux ay ka dhimatay 11 maalmood ee uu dagaalka u socday, kaas oo la soo afjaray Jimcihii kadib markii dhexdhexaadin ay dowladda Masar gashay. Hadalkani ka soo yeeray Mareykanka ee ah inaan la baarin kiisaskii ka dhacay Gaza ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli intuu dagaalkaasi socday uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay inay Israa'iil xaq u leedahay inay isdifaacdo, taas oo ka dhigneed inay Israa'iil weerari karto Gaza iyo dadka reer Falastiin. Mareykanka ayaana u muuqan dowlad dhexdhexaad ka ah carladaha ka socda Falastiiniyiinta iyo Gaza. Mareykanka ayaa u muuqda dowlad aan dhexdhexaad ka ahayn dagaalka ka dhex socda Gaza ee u dhaxeeya Falastiiniyiinta iyo weliba Israa'iiliyiinta. Hase yeeshee waxaa jira dowlado waaweyn oo Islaam ah oo arrintani dabada ka riixaya. Waa Mahad Bashiir Cusmaan, Telefishinka iyo raadiyaha Sooyaal.